shir jaraa'id oo maanta magaalada Hargeysa ay ku qabteen mas'uuliyiinta ugu sarsareeya xisbiga oo cudiya qaar ka mid ah xildhibaanada golayaasha deegaanka ee ka hadhay doorashadii golayaasha deegaanka ee degmooyinka Hargeysa Berbera iyo sidoo kale Gabiley ayaa waxay ka jawaab bixiyeen eedeymaha ay xisbiga oo cud u soo jeediyeen maayarada magaalooyinka Berbera iyo sidoo kale Gabiley. ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay afayeenka xisbiga mucaaradka ee ucud Maxamed Xasan Khayre Shabash iyo sidoo kale xogayaha warfaafinta xisbiga ucud Yuusuf Kaysi Cabdilaahi. waxaan halkan ku biyaaminaynaa marka hore inamada maayarada iyo xildhibaanada xeerka ku gafay ee ka baxay xisbi kala galay ee xeer number 14 qodobka 11 faqradda afraad ay hayso waxaan horta u soo jeedinayaa marka hore sida horeba xisbigu ugu soo jeediyeen inay iscasilaan oo aayar aan isdhibin cidda taagan saf markay soo kaxaysanayaan cid kale ay waxa mudiciga koobaad waa xildhibaanadii idin la sharaxnaa ee codkooda ku fadhideen waana kuwan hareerahayga taagan iyagaana isbayaamin doonaan inanka Gabiley inamadii Gabiley ee kula sharaxnaa ee codkooda aad ku fadhiday waa kuwan taagan iyagaana geelayo ku bedelaya haddii uu yahay cidin iyo ciddii Berbera ka baxdayna waxa bedelaya xildhibaanadii Berbera waa kuwan taagan xeerku Cabdishakuuro sidaad ugu jeceshay ma maxamed amiin oo xeerku sidaad jeceshay ma xeer 14 xeerka adigu aad soo qaadatay Faysal Cali Waraabe xeer 14 wuxuu u ogoliyay maanta hadduu dhaca iyo hadduu soo baxaba inuu mar afraad sharaxo xeerku wuxuu u ogoliyay inuu mar afraad sharaxo sababtoo ah xeerka goorma lagu dhaqmaa waxa lagu dhaqmaa marka madaxweynuhu ansixiyo xeer 14 labadiisii doorasho hore uu sharaxayba uu ka dambeeyay maanta kow Faysal Muuse iyo Ciro oo marmar is sharaxay Faysal waa la mid oo marun buu sharaxaya mar saddexaad mar afraad buu ogoliyay inuu sharaxo marka waxaan leeyahay guddida diiwaangelintu uu cid cadeeymo ugama baahna cid kalena cadeeymo ugama baahna Cabdishakuur cidin baa afkiisa ku cadeeyay in xeer 14 ay jabiyeen waxaan leeyahay ha lagu qaada ka waxaanan kalsooni buuxda ku qabaa sida iyaga ka dareemaysan maalintii dhawey waxaana kala reebay nimankaanu saaxiibada nahayna ka dhigay xildhibaano annagana kaydka naga dhigay oo waa hadleen la yiri sharcigu ahaa iyo xeerka qodob sharci buu hayo nidaamkii inoo yaalay iyo systemkii aynu ku dhaqmaynay ayaa sheegayay sida loo soo kala baxayo isla maanta systemka aanu annaguna aqbalay xeerka aanu ogoleysiiyay inaanu hadhno iyaguna xildhibaano ay noqdaan ayuun baa maantana yaala oo qayaxaya oo sheegaya xildhibaanku xilliga uu waayi kara xasaanadii xildhibaanka ku ahaa tiibaana timi waxaan leeyahay war annagoo maalinta waanu aqbalno jirkaanu isgelinay waa dhacdeen tiye maanta idinka la idin oran maayo waa dhacdeen xasaanadii baa weydeen baa la idin leeyahay haddii aad soo go'deen sidii gofanaha oo idinkiisa soo rideen dee iska socdo waa marka iyagiyo dee walaal iskaga baxa waxaa kaloon leeyahay odayada degmooyinka ka imanaya ee u hadlaya shakhsiyaad kursi fadhiya war berita haddaan fadhiisto waa idin soo gurguurani komishinka qaranka hay-adaha cadaaladda sida maxkamadda sare oo kale haddii aad ka shaqayn weydaan oo maanta la idinka waayo labadaa xildhibaan in aad cadaalad ku sugtaan ogaadaydeenaan doorashada dalkan u niqi doonin garar xisbiga kulmiye ayaa farayn badan ku haya guddiga diiwaangelinta oon aad u ogay anu maanta haddii aad kulmiye cadaalad darrada adoo xisbi xukuumigiiya keento saad dambana dee way kuu taallaa oohintaadii ninkaan la hadlaya u isgaranaya ya markaa waxaan leeyahay walaalayaal laba inanoo isbedelayo maanoo walaal ah Cabdirashiid Cali Barre telefishinka caalamiga ee SAB magaalada Hargeysa.